askar ka tirsan dalka Niger ee dhaca galbeedka Afrika ayaa ku dhawaaqay inqilaab ay sameeyeen sida ay ka sheegeen telefishinka qaranka dalkaasi. Waxa ay sheegeen in dastuurkii ay kala direen isla markaana ay laaleen dhammaan hay'adaha dawladda, sidoo kalena ay xidheen xuduudaha dalkaasi. Madaxweynaha Niger Mohamed Bazoum ayaa waxa gacanta ku haya ciidamada ilaalada madaxtooyada tan iyo horraantii maalintii Arbacadii. Xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa sidoo kale sheegay in uu la hadlay madaxweynaha uuna soo jeediyay qaramada midoobay inay taageero buuxda la garab taagan tahay. Mr. Bazoum ayaa ah saaxiibka muhiimka ah ee reer galbeedka ee dagaalka kula jira kooxaha Islaamiyiinta ah ee galbeedka Afrika. Laba dal oo daris ah oo kala ah Mali iyo Burkina Faso ayaa waxa ka dhacay afkambiyo ka dhashay kacdoonadii jihaadoonka ahaa sanadihii u dambeeyay. Niger waxa ay la daala dhacaysaa laba kacdoon oo Islaamiyiin ah, mid ka socda koonfur galbeed oo ka soo bilaabmay 2015 Mali, halka uu kan kale ka socdo koonfur bari oo ay ku lug leeyihiin jihaadiyiinta fadhigoodu yahay waqooyi bari Nigeria. Madaxweyne Bazoum oo si dimuqraadi ah loo soo doortay 2021 waa saaxiibka dhow ee Faransiiska iyo wadamada kale ee reer galbeedka. Geesta kale Ruushka ayaa ka hadlay hadallo been abuur ah oo sheegaya inuu diiday inuu shirka golaha ammaanka ee qaramada midoobay ee ku saabsan heshiiska madiga. Wakiilka Ruushka ayaa diiday in uu ka hadlo qadafka reer galbeedka ee ku saabsan burburinta lagu eedeeyay Ruushka, ayay tiri afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Ruushka oo warbaahinta la hadashay. Ruushka ayaa beeniyay inuu diiday in uu ka hadlo shirka golaha ammaanka ee qaramada midoobay ee ku saabsan hindisaha hadhuudhka badda madow, kaas oo Moscow ay ku dhawaaqday in ay joojisay ka qaybgalkiisa 17 Julaay. Sakharova ayaa sheegay in Ruushku uu si dhab ah uga hadli doono heshiiska hadhuudhka, isaga oo xaqiijinaya in wakiilkeeda qaramada midoobay uu diiday inuu ka hadlo mawduuca been abuurka ah ee reer galbeedka ee lagu eedeeyay. agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta khayraadka biyaha ayaa xadhiga ka jaray dhaambiyood cusub oo laga hirgeliyay deegaanka magaala Muumin oo ka tirsan degmada Faraweyne. Munaasabadda xadhiga lagaga jarayay dhaamkaasi ayaa waxa ka qayb galay mas'uuliyiinta wasaaradda khayraadka biyaha oo uu hogaaminayay agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta khayraadka biyaha Injineer Cabdiraxmaan Faarax Belel, maamulka degmada Faraweyne, kan deegaanka magaala Muumin iyo bulshada deegaankaasi. Ugu horreyn waxa halkaasi ka hadlay isla markaasina dhaamkaasi si weyn u soo dhaweeyay qaar ka mid ah waxgaradka deegaankaasi, kuwaasi oo wasaaradda horumarinta biyaha uga mahad celiyay hirgelinta dhaambiyoodkaasi, iyaga oo xusay inay baahi weyn u qabeen ka faa'iideysiga biyaha roobka. Waxaana iyana halkaasi ka hadlay gudoomiyaha deegaankaasi iyo kan degmada Faraweyne, iyaga oo bulshada ugu baaqay ilaalinta iyo daryeelka dhaamkaasi. Ugu dambeyn agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta khayraadka biyaha Injineer Cabdiraxmaan Faarax Belel oo hadal dhinacyo badan taabanaya goobtaasi ka jeediyay ayaa ku dheeraaday sida ay wasaaradda khayraadka biyaha go'an tahay yareynta biyo la'aanta, isla markaana ay u danaynayso inay bulshada u soo saarto biyaha dhulka hoostiisa ku jira iyada oo riigag u qodaysa ama looga faa'iideynayo biyaha roobka ee dhulka dul cararaya iyada oo la samaynayo dhaaman biyaha lagu qabto. Dhaamkani wuxuu wax badan ka tiri doonaa runtii baahidii biyood ee halkan ka jirtay. Baahidu halkan ka jirta runtii way badan tahay oo waxaan ognahay imika halkan wuxuu kaga hadlayay gudoomiyuhu in baahi caafimaad jirto, baahi biyoodna ay jirtay, laakiin baahidii biyood waynu ka jawaabnay. waxa dhimana waynu dhamaystireynaa. tu waxbarasho iyaduna jirta, taa waxbarasho ee jirta runtii baahida waanu waxyaabo imikaanu ka sheekaysanay bay kamid ahayd, iyadana filowgeedii baanu ku jirnaa. fariimo badan baa runtii halkan aanu ka qaadaynaa, kolba wax laga soo jawaababa markastoo idin imaadna fariin baana sii fartaan. fariintaana waxaan rajaynaynaa insha Allah fariimaad maanta na farteen ee baahiya caafimaad iyo waxbarasho leh inaanu ka soo jawaabnaan rajaynaa insha Allah.